shaki kuma jiro in qaaradda Antarctica ay ku taalo cirifka koonfureed ee dunida ayna tahay meesha keliya ee dunida ku taala aysan dabeecaddu marnaba u saamaxayn nolosha bini'aadamka. Waa meesha dunida ugu qabow, ugu fog, uguna cidla ciirsilaanta badan. Dhanka kale, waa qaaradda ugu nadiifsan, uguna dihin ee uusan weli bini'aadamku saamayn ku yeelan. Iyadoo ay jiraan dhibaatooyinkaasoo dhan, haddana bini'aadamku waxay halkani ku noolaayeen muddo aad u dheer. Laakiinse su'aashu waxay tahay sidee bay taasi ku suurto gashay? Ku soo dhowaada mar kale muuqaalada sare. Antarctica waa dhul aad u baaxad weyn, ilaa iyo heer ay gudaha u geli karaan dalka Maraykanka iyo dhammaanba dalka Hindiya oo dhan. Bal qiyaas qaaraddaasi baaxadda leh waxa boqolkiiba 98 ku tahaadhan baraf aad u qaro weyn. Meelaha qaar qotada barafkaasi waxa uu hoos u gaadhayaa ilaa 5 kiiloomitir. Caadiyan heerkulku waxa uu halkani hoos ugu dhacaa ilaa -60 digrii. Inkastoo hal ama laba jeer sanadkii adduunka laga dareemo xilliga kulaylaha ee xagaaga, Antarctica waxa uu taagan yahay heerkulkeedu 12 digrii meel ka hooseysa heerka barafka, ama si kale haddaynu u dhigno -12 digrii. Sanadkoo dhanna heerkulku waxa uu ka hooseeyaa heerka barafowga. Taasina waa midda keentay in barafka halkani yaalla uusan marnaba dhalaalin. Sanad kasta qiyaastii 2 inji oo baraf cusub ah ayaa ku soo kordha Antarctica. Tiradani waxay u muuqan kartaa mid yar, balse marka ay muddo 10 milyan oo sano ay ururaan, 2daasi inji ee marba yar isdul fuulaya waxay samaynayaan lakabyo baraf ah oo isdul saarsaaran, kuwaasuna ah kuwa dhab ahaantii sameeyey qaaraddan aynu maanta aragno. Keliya ma aha barafka iyo qaboobaha daran waxaa nolosha halkaasi ka dhiga mid adag. Antarctica, qoyaanka hawadu ama humidity-gu waa mid gebi ahaanba ka maqan meesha. Caadiyan hawada inagu hareeraysan waxay leedahay qoyaan dhan 40% ilaa 80%, kaasina muhiim u ah caafimaadka dadka iyo deegaankaba. Laakiinse Antarctica, heerka qoyaanka ee hawada ku jira waa 0.3 oo keliya. Taasina waa sababta ay cudurrada maqaarka ku dhaca iyo biyo la'aanta jidhku dehydrationku ay ugu yihiin wax aad ugu badan halkaasi. Intaas waxa dheer, cirifka koonfureed ee dunidu wuxuu dhulka ka sareeyaa ilaa 980 feet. Inkastoo jooggaasi uusan keligiis khatar weyn ku ahayn, haddana dadka intooda badan ayuu ku sii kordhiyaa dhibaatada ay ku qabaan joogitaanka halkaasi. Si kooban haddii loo dhigo, Antarctica uma qaabaysnaa bini'aadamka. Xaqiiqdii uma qaabaysnaa inay ku noolaadaan wax kastoo nool. Haddana iyaday sidaasi tahay, bini'aadamku way joogaan. Waxayna u joogaan hal sabab oo qura, waana cilmi baadhisyo awgeed. Iyadoo ayna markeedii horeba nolosha ku wanaagsanayn halkaasi, ayaa haddana saynisyahanada loogu dira Antarctica si ay xoog iyo aqoon uga raadiyaan. Kani waa saldhigga Amundsen Scott oo ku yaala Antarctica. Waa xarun ay leedahay dowladda Maraykanku oo xilliga xagaaga ay degaan ku dhowaad 150 saynisyahano iyo shaqaale isugu jira, halka xilliga jiilaalkiina ay ku hadhaan 45 qof oo keliya. Hal qaabo qura ayaana lagu soo gaari karaa goobtani xilliga jiilaalka ee dhaxamuhu dhacayaan, waana diyaarada. Ma jiraan wax wadooyin ah. Barafka oo aad u dhumuc weyn awgiis, suurtagal ma aha in wadooyin la dhiso. Xitaa meelaha ay diyaaraduhu ku soo degaan lagama sameyn shub iyo dhagaxaan, balse waxaa laga dhisay waxa ugu badan ee halkaasi yaalla oo ah barafka laftarkiisa. Barafka ayaa mishiinno waaweyn lagu cadaadiyaa oo lagu tumaa ilaa uu ka adkaado si uu xajiyo miisaanka diyaaradda. Duuliyayaashu waxay maraan tababar aad u adag si ay halkani ugu soo degaan, waayo wadooyinka barafka ka samaysan ee diyaaradaha loo sameeyey inay ku ordaan maaha kuwo caadi ah, waa kuwo aad u silsilbanaya. Diyaaradaha xamuulka ee aadka u culusna markay ku soo degayaan waddadan barafka waxaa loo adeegsadaa lugo gaar ah oo loogu talagalay barafka, halkii laga isticmaali lahaa lugaha caadiga. Hadday diyaaradahaasi ay yeelan lahaayeen taayiro caadi ah, waxay durtadiiba dhex geli lahaayeen barafka dhexdiisa markay dhulka ku soo duldegaan.
saldhigga Maraykanka ee cidhifka koonfureed markii ugu horreysay waxaa la dhisay sanadkii 1956 waxaana laga sameeyey alwaax balse waqti yar gudihii waxaa gebi ahaanba qariyey barafka sanadkii 1974 ayaa dib loo dayactiray waxaana loo qaabaykaysiyey qaab u eeg aqalada barafka laga dhiso ee waaweyn ee loo yaqaano iglo laakiinse isku-daygaasina muu guulaysan waayo xilli kasta oo jiilaala barafka ayaa dusha kaga dumayey oo aasayay dhismaha antartiki waxay ku taallaa cidhifka koonfureed halkaasina 6 bilood ay tahay maalin aysan qoraxdu hal marna dhacayn halka 6 bilood ee ku xigtana ay tahay habeen oo qoraxdu aysan marnaba soo baxayn muddada 6 bilood ay habeenka xidhiidhka suurtagal ma aha in dhismaha laga xaadho barafka hortiisa yaalla sidaasi daraaddeed shaqaaluhu waxay ku khasbanaayeen inay ka sugaan inta la gaadhayo 6 bilood ee maalinimadka si ay u bilaabaan qodista taasina waxay luminaysay wakhti badan sanadkii 2008 Maraykanka ayaa la yimid hab cusub isagoona dhismihii hore ku bedelay midkana hadda jira waxaa dhismahan cusub ka dhigayaa mid gaara ayaa in naqshadiisu tahay mid u jaango'an in hawadu si fudud u dhex marto waxaana kor looga qaaday barafka iyadoona la saaray tiirar xooggan oo kor iyo hoosba dhaqaaqi kara hydraulic pillaries naqshadan darteedna barafku si fudud uguma ururo dhismaha dushiisa ama hoostiisa inkastoo 10 sannaba mar barafku soo gaadhi karo dhismaha hoostiisa haddana markaasi waxaa suurtagal ah in dhismo oo dhan kor loo sii qaado iyadoona la adeegsanayo tiirarkaasi hydraulic ku shaqaynaya antarctica waa qaarad xor ah yacni waddan gaar u leh ma jiro waxaa halkani ku yaalla xarumo cilmi baadhisyo oo ay leeyihiin 29 dal oo caalamka ka tirsan haddaba waxaa isweydiin mudan maxay tahay cilmi baadhisyada halkan in laga sameeyo ee aan dunida inteeda kale laga samayn karin inta badan howlaha halkan in laga qabto waxay ku saabsan yihiin barashada cilmiyada hawada sare iyo cilmiga xidigiska caadiyan uumiga iyo qoyaanka hawada ku jira ayaa cirka ka dhiga mid aan si cad waxba looga dhex arki karin haddii teleskoobyada la dhigo meelaha kulaylaha ma arki karno meelo aad u fog laakiinse cidhifka koonfureed ama antarctica maadaama uusan ka jirin wax qoyaana cirku waxa u muuqdaa mid aad u hufan oo nadiif ah taasna u oggolaanaysaa teleskoobyadu inay si sahla u arki karaan cirka sare meelo jira malaayiin sanno oo iftiinka qoraxda xitaa sawirkii ugu horreeyey ee gedka madow black hole-ka laga soo qaaday sanadkii 2019 waxaa qayb libaaxle ka qaaday qaadistiisa teleskoob ku rakiban qaaradda antarctica marka laga tago daraasadaha hawada sare ee halkani laga sameeyo waxa kale oo halkani laga sameeyaa cilmi baadhisyo lagu eegayo xudunta barafka ice core su'aalo badan ayaa la isweydiinayaa sidee bay cimilada dhulku ahayd malaayiin sano kahor maxay ahaayeen baartikalada iyo gaasaska hawada ku jira xilligaasi dhammaanba sirahaasi waxay ku kaydsan yihiin hoosta hoose ee barafka qotada dheer ee antarctica saynisyahanadu waxay lakabyada barafka hoostiisa ka soo saaraan tuumbooyin ay hore u geliyeen kadibna waxay ku sameeyaan daraasado si ay u ogaadaan xaaladihii kala duwanaa ay dunidu soo martay cimilada qalafsan ee cidhifka koonfureed awgeed waxaa halkani loo diraa tiradii ugu yarayd ee cilmi baadhayaal ah cilmi baadhayaasha halkaasi jooga waxay u baahan yihiin inay indhaha si weyn ugu hayaan qalabkooda shaqada si ay xogta ay ururiyaan ay si saxa ugu diri karaan wadamadii ay ka yimaadeen sida hal wado oo qudha looga soo galo ayaana hal wado oo keliya ta looga baxa qaaradan sanad kasta waxaa jira muddo 3 bilood oo keliya oo ay shaqayn karaan diyaaraduhu inta kale sanadka ka hadhina waxaan macquul ahayn marnaba in laga baxo cidhifka koonfureed haddii jirto meel ay bini'aadamku kaga sii fog yihiin joogitaanka antarctica waa saldhigga caalamiga ee hawada sare ku yaalla ee ISS xitaa cirbixiyaanada halkaasi ku sugan haddii xaaladdu ku xumaato oo loo baahday in gurmud loo fidiyo waxay fursad u haystaan inay ka soo goostaan saldhigga oo ay ku soo dhex ridaan weelkooda qafilan kaabsuulaha badweynta si loo badbaadiyo laakiinse fursaddaas oo kale lagama helayo antarctica xaaladaha degdegka waxaa goobtani jooga dhakhaatiir haddii xaaladdu ka sii dartana oo ay murgatana koox dhakhaatiir ah oo jooga Maraykanka ayaa ku soo biiraya iyagoona uga qayb qaadanaya qaab maqal iyo muuqaal ah laakiinse xidhiidhkaasi muuqaalkii waxa uu ku xidhan yahay internetkuna waa caqabada ugu weyn ee halkaasi ka jirta dunida inteeda kale xitaa meelaha aadka u fog waxay internetka ku heli karaan dayax-gacmeedyada komershiyaalka ama ganacsiga ee hawada ku jira
hase yeeshee dayax-gacmeedyadaasi ganacsigu si toosa uma soo dulmaraan cidhifka koonfureed, taasi daraaddeedna signaladoodu halkaasi ma soo gaadhaan. dunida waxaa ka jira dayax-gacmeedyo aad u kooban oo signaladooda laga heli karo cidhifkan koonfureed ama qaaradani antarctica, kuwaasina waxay shaqeeyaan oo keliyata dhowr daqiiqo ama dhowr saacadood oo keliya. si internetka loo isticmaalo, dadku waa inay sugaan wakhtiyo go'an oo dayax-gacmeedyadu soo dhowaanayaan goobta, markaasoo quriya ayaa la heli karaa xidhiidhka 24 saacadoodba. internetku waxau shaqeeyaa qiyaastii 3 saacadood iyo 50 daqiiqo keliyata. wakhtigaasi kooban ayaa loo isticmaalaa in lagu gudbiyo xogta sayniska, cilmi baadhayaashuna ay kula xidhiidhaan qoysaskooda. dhibaatada kale aadka u weyn ee cidhifka koonfureed ka taagan waa sida qashinka loo maareeyo. sida uu dhigayo sharciga caalamiga, qof walba waxa saaran mas-uuliyadda in qaaradan laga ilaaliyo wasakhda iyo qashinka, sababtoo ah waxay dhaawici kartaa cilmi baadhisyada halkaasi ka socda. taasi macnaheedu waa inay wax kasta oo halkani la keeno ugu dambaynta dib looga saaro. qashinka saldhigga waxaa la ururiyaa sanadkoo dhan, dabadeedna waxaa loo qaadaa dhinacaas iyo saldhigga McMurdo oo xeebta ku yaala, halkaasoona lagu kala saaro laguna kala farsameeyo. kadibna markab sanadkii hal mar imanaya ayaa dib loogu qaadaa meel ka baxsan qaaradda antarctica. xilliga jiilaalka, saldhigga cidhifka koonfureed ee Maraykanku waxa ku hadha oo keliya 45 qof. dadkan si aada ayaa loo xulaa, waayo xilliyadani waa xilliyada haddii ay wax qaldamaan ay ku dhowdahay inaanay suurtagal ahayn inay ka baxaan ama inuu gurmad dibadda uga yimaado oo uu soo gaadho. kooxdan waxaa loo tababaray diyaarnu yihiin inay la tacaalaan xaalad kasta oo soo korodha. muddo 6 bilood ah waa habeen oo keliyata, waxaana aad u badan welwelka, niyadjabka iyo tabashada guriga homesickness. xidhiidhka ay dunida kale la leeyihiin waa mid aad u kooban, waxayna ku shaqeeyaan khayraad aad u xadidan. geesinimada iyo nafuurnimada kooxdaasi run ahaantii waa wax aad u adag in si buuxda loogu sharaxo muuqaal gaaban. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxa shaashadda iminka saaran muuqaal kale oo la xidhiidha isla mawduucani. keliya guji.